السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن وناكسن داوديال دلهانتين بكسر دوادا وركن يمان الله واتكلا سعود تيرتين مرتميديا وركن واحد إلا سعود سيني ساني واهن معضي محمد ومالين ثلاثة سقالي توانكي تين وري لبدا كل يكو يلباتنكا وضبدا بدور كرون وركن مان تنوحا كاملا وفدي كسعودي حكومة الدولة الديغان كالصوماليدا أو غاري كينيا أيا نيروبي كلا كلمي دنشرها جمهورية الديمقراطية فدرالك إثيوبيا أو فدية وطن كاسي sidoo kale warbixin dheeraad ah oo ku saabsan shidaalka dawladda deegaanka Soomaalida ayaan idin haynaa daawadayaal imika yahaatana ku soo dhawaada wararkan iyo warar kale oo faahfaahsan wafdi ka socday xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida oo gaaray Kenya ayaa Nairobi kula kulmay danjiraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya u fadhiya wadankaasi wafdigan oo hogaaminaya wasiirka xafiiska maalgashiga iyo qurba joogta oo ay ku wehelinayaan wasiir ku xigeenka xafiiska warfaafinta dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Jimcaale Axmed iyo wasiir ku xigeenka xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Xasan Bulbul mas'uuliyiinta oo in muddo ahba wadamada dariska u soo bandhigayay fursadaha ganacsi ee ka bannaan iyo sidii loo maalgashan lahaa deegaanka Soomaalida ayaa la kulmay danjiraha dalka Itoobiya u fadhiya magaaladaasi Nairobi wafdiga ayaa sharaxaad ka siiyay danjiraha ujeedooyinka socdaalkan iyo kulan ay maanta rabaan inay kula yeeshaan gudaha safaaradda bulshada ganacsatada Soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada Nairobi kulankaasi ayaa waxaa lagu rajawan yahay in ganacsatada Soomaalida ah ee daneynaya inay soo maalgashadaan deegaanka Soomaalida sharaxaad dheeri ah laga siin doono xogo dheeraad ah oo ku saabsan dhinaca maalgashiga xeerka cusub ee maalgashi ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya waxaana xusid mudan in dhinacyada beeraha xoolaha iyo warshadaha ay yihiin meelo maalgashiga ku habboon dhulka dawladda deegaanka Soomaalida madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa saaka xariga ka jaray dugsiga Qoraxa International School dugsigani way ku baxday lacag dhan 30 milyan oo bir ayaa lagu dhisay isku tashi iyo wadajir waxaana qorshihiisa lahaa qurba joog u dhalatay gobolka Qoraxay si ay uga qayb qaataan dhaqdhaqaaqyada horumarineed ee ay wada dawladdu dugsigan oo ka kooban G+2 iyo 24 qol ayaa la sheegay inay wax ku baran karaan arday ka badan 1000 arday waxaana dugsigan la soo bilaabay sanadkii 2011 balse xukuumadii hore ayaa u joojisay sababo shakhsiyeed oo la garanaynin isbeddelkii kadib ayaana si hor loo bilaabay taasoo waqti yarna lagu gabagabeeyay dugsigan Qoraxa International School ayaa waxbarashada ka bilaabi doona fasalka hoose balse dib u ballaarin ku sameyn doona ilaa dugsiga sare waxaana lagu baran doonaa culuumta diiniga iyo maadiga halka macallimiinta baraya ardaydan ay ka iman doonaan dalka dibadiisa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida oo ka hadlay xafladii furitaanka iskoolkani ayaa sheegay inay muhiim tahay in dadku wax qabsadaan oo ay isku tashi la yimaadaan iyagoo tusaale ka qaadanaya qurba joogta gobolka Qoraxay qodobka ugu dambeeya warkeena maanta ayaa ah Itoobiya oo joojisay heshiis ku kacayay 3.6 bilyan oo dollar oo ay la gashay shirkad Mareykan ah baaritaan dheer kadib saraakiisha sarsare ee wasaaradda macdanta iyo shidaalka ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in ay dawladdu ka noqonayso heshiis ay hadda ka hor la gashay shirkad nafteeda ku qaaxday shirkad tamareed fadhigeeduna yahay dalka Mareykanka kadib markii baaritaan ay samaysay Quartz Africa ku ogaatay in aysan shirkadani lahayn xirfad warshadeed shidaal ama mid aqoonsi Dr. Kong Tlam wasiirka dawladaha wasaaradda macdanta iyo shidaalka Itoobiya ayaa ku sheegay oraha u diray Quartz Africa in ay dawladdu ku jirto habkay uga noqon lahayd heshiiska shirkadan oo lagu magacaabo Greencom Technologies fadhigeeduna yahay Virginia oo mulkiile ka yahay Itoobiyaan Mareykan hore u ahaan jiray shaqaalaha shirkad gawaarida ka ganacsata laguna magacaabo Nebiyu Getachew ayaa isku diyaariyay inuu maamulo 3 bilyan oo dollar oo lagu dhisay warshad sifaysa shidaalka lagana dhisay dawladda deegaanka Soomaalida kadib markii heshiis la galay dawladda Itoobiya 28 Abriil heshiiska ayaa waxaa qayb ka ahaa in wada hadalku uu socdo ugu yaraan 2 sano shirkadda iyo dawladda xubno ka mid ah saraakiisha wasaaradda macdantuna baaritaan ku sameeyeen taariikhda shirkadda iyo waxqabadkeedii hore iyo sharciyadeeda balse baaritaankii la sameeyay ayaa lagu ogaaday in uusan waxba ka jirin sheegashadii awoodeed taasoo ay ku sheegtay inay mashruucyo hore soo samaysay
shirkadan ayaa isu muujisay hoggaan warshadeed balse waxaa la waayay hal mashruuc shidaaleed oo ay meelna ku dhamaystirtay weliba waxaa kale oo la ogaaday in liiska shirkadaha gobolka Virginia laga saaray markii heshiiska saxeexday 28 Abriil. Quartz Africa ayaa sheegtay in markay baaritaanka ku guda jirtay ay la xidhiidhay wasiirka macdanta iyo shidaalka ee dalka Ethiopia Takle wuxuuna u sheegay in uusan heshiiskan waxba ka ogeyn wax fikrad ahna uusan ka haysanin balse uu khadka taleefanka kula xidhiidhay wasiirkii isaga ka horreeyay Samuel Arkoto wasiirkaasina oo heshiiska garwaaqsaday balse uu taleefanka ku sii jiray oo uu diiday inuu wax faahfaahin ah ka bixiyo. Dr. Kong ayaa Quartz Africa u sheegay inay in badan oo kamid ah saraakiisha wasaaraddu ka walaacsanaayeen heshiiska shirkadaas lala saxiixday wuxuuna sidoo kale sheegay in ay shirkaddu ugu horreynba wasaaradda weydiisatay $100 milyan oo horumaris ah wuxuuna ku sababeeyay in ay doonayaan inay balaayiin deymaha ku helaan arrintaas oo shaki weyn ku abuurtay shaqaalaha wasaaradda ee sarsare wuxuuna sidoo kale sheegay inuu heshiiska ku jiray inay shirkaddu soo xarayso $5 milyan oo shahaadada caymiska ah arrintaas oo ay ku guuldareysatay shirkaddu. Quartz Africa ayaa baaritaankeedii ku ogaatay in uu Fitz Marega safiirka USA u fadhiyay Ethiopia uu aad uga ololeeyay in shirkaddu ku guulaysato heshiiska. Dhanka kale waxaa jiray in shirkadda Chinese Poly TCL oo soo saarista shidaalka ka wada deegaanka Soomaalida heshiis la gashay dowladda Djibouti kaas oo dhigaya in dhuumaha shidaalka qaada la dhigo oo ilaa Djibouti ah warshadaha shidaalka sifaynayana laga dhiso Djibouti. Arrimahan ayaan u kala caddayn shacabka Soomaalida ah ee dhulkaasi iska leh. hadda ka horna waxaa jirta in Dr. Juweriya Cali oo ah gabadh u dhalatay deegaanka Soomaalida baaritaan kooban oo ay ku samaysay ka ogaatay in ay dadka aagga shidaalka qodistu ka socoto ku nooli wajaheen khatar caafimaad iyo cudurro aysan aqoonin. Warbixintaas oo lagu baahiyay jariidada The Guardian balse ay wasaaradda macdanta ku tilmaantay waxba kama jiraan. warbixii aanu idiin haynay daawadayaal waa naga intaa marka xigta ku kulmi doona hawada waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.